kulanti wanaagsan haddaba barnaamijkeena qaybta ugu horeysa waxaynu si weyn uga faahfaahin doonaa wararka iska soo daba dhacaya hadda oo aan idinla hadlayo Mareykanka sheegashadiisa Iiraan waxa ay sheegayso iyo warbaahinta Mareykanku waxa ay sheegayaan saddexda qaybood ayaan u qaybin doonaa marka waxa laga hadlaa marka saddexda qaybood loo qaybina maxay yihiin arrinta ku saabsan duuliyihii Mareykanka ee lagu waayay gudaha Iiraan marka waa war weyn oo saakay aad looga hadlayo warbaahinta Mareykanka iyo Trump waxay yiraahdeen duuliyihii waa soo badbaadinay shaqo aad u culus howlgal ciidamo fara badan ay ka qayb galeen diyaarado fara badan ay ka qayb galeen oo maaragtay ciidan commandos ka qayb galay oo eriyada dabxir lagu sameeyay saas ayaa markii ugu dambeysay soo qabanay waana howlgalkii ugu ballaarnaa ee askari lagu badbaadiyo Mareykana taariikhda meeshaas waxa taagan Mareykanka marka midda Iiraan iyo midda kale oo warbaahinta qaar Mareykanku ay arrinka ka hadlayaan way noo dhimantaa marka hore galina haddaba marka wararkii ugu dambeeyay sheekadan waxa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Trump wuxuu sheegay ciidanka Mareykanku inay fuliyeen mid kamid ah howlgalladii ugu ballaarnaa ee soo mara taariikhda Mareykanka ee badbaada ah haddaba waxaa la sheegay in Mareykanku ay taariikhdiisa howlgal sidan oo kale ah oo askari lagu badbaadinayo aanay dhicin waxaana uu sheegay in halka loo diray 10 diyaaradood oo hubaysan iyo sidoo kale ciidamo tababaran iyo iyagoo wata hub marka aan caadi ahayn oo culus si ay marka u soo celiyaan oo u soo badbaadiyaan mid kamid ah saraakiishoodii diyaaradii loo burburiyay haddaba dhanka kale waxa isla warbixinta ka hadlay wargeyska la yiraahdo Axios wuxuu leeyahay ciidamo si gaar ah u tababaran oo commandos ayaa fuliyay howlgal ay ku soo badbaadinayaan duuliyihii labaad diyaaradii F-15 ee ku soo dhacday gudaha Iiraan haddaba mas'uuliyiin Mareykan waxay sheegeen in duuliyaha la soo badbaadiyay howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidanka commandoska iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo marka howlgalkaasi uu ahaa mid aad u ballaaran qaybtan marka waa Trump iyo warbaahinta Mareykanka qaar kamid ah waxay leeyihiin Mareykankii wuxuu leeyahay waa soo badbaadsanay duuliyaheena waxay rabtaa ku qaadato commandos dirnay kana dirnay waxay rabaan ha sameeyaan laakiin waxay leeyihiin waa soo badbaadsanay sheekada dhinaca Iiraan ka socota way ka duwan tahay marka midan u fiirsada sheekada Iiraan dhankeeda waxa meesha ka dhacay way ka duwan tahay nimankan faankooda ee askariga waa soo badbaadsan Iiraan marka waxa jirta wakaalada wararka ee la tasniim waxa la aaminsan yahay oo iska leh sida la leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan marka tasniim waxay leedahay way dileen duuliyaha waa soo badbaadinay leeyihiin wax ka jira male waa la khaarijiyay sidee loo khaarijiyay waxay yiraahdeen eriyada duuliyaha aanu annaga laftirkeenu ka raadinayno ku dhacay ayay dambaska ka dhigeen wixii hub ay haysteen ku garaaceen markii ay ka quusteen inay si nabadgelyo ku qaataan Iiraan saasay taagid u fiirsad marka waa la kala duwaya Iiraan waxay leedahay ninka ma badbaadin ninkaas ayaga khaarijiyay way dileen haddaba marka aan tuso wararka ugu dambeeya sheekadan ku saabsan haddaba wakaalada wararka ee tasniim waxay leedahay ciidamada Mareykanku waxay dileen oo maaragtay duuliyihii diyaaradda markii ay waayeen oo ay heli waayeen oo ay ka quusteen waxay isku dayeen inay marka khaarijiyaan way dileen leedahay marka waxa qoraysa wakaalada wararka tasniim oo soo xiganaysa mas'uuliyiin militariga Iiraan ka tirsan muujada markii helistiisa ay ka quusteen oo meelay ka raadiyaan waayeen ayaga dilay ay Iiraaniyiintu waa soo bixinay waa been adduunka la iska gadayo dadka Mareykanka iyo duuliyaha soo badbaadinay wax la badbaadiyo ma leeyahay
nimankaasi ayaga ayaa khaarijiyey ninka waa dileen way garaaceen meeshii way garaaceen markay ka quusteen meeshuu ku jiray way garaaceen marka sidee ku ogaa karaan meesha uu ku jiray waa su'aal waxaa leeyahay duuliyaasha Mareykanka waxay wataan bahal yar oo GPS la yiraahdo oo ay dharkooda ugu dhagan ama meel kale ku dhagan oo jirkooda kamida ama ay haystaan jira GPS kaas ayay diyaaraduhu la socdaan meesha uu yaalo marka duuliye kasta lacalla markuu dhaco waa loogu talagalay si loo helo in meesha uu yaalo ay u gartaan ciidanka kale ee Mareykanka GPS kii marka way meesha uu galaan la soo bixin waayay kadib waa lagu dumiyay meeshiisa meel buura oo mushkilada oo aan la gali karin ayuu ku dhacay markaas nimankii Iiraaniyiintu ciidana inta u direen shacabkii ku baxay ayaa wixii oo dhan la halka la isku duqeeyay marka ninka marka waxa leeyahay halkaas lagu dilay ayay leedahay riwaayada oo dhanka ka iimaanaysa Iiraaniyiinta laakiin marka warkan Iiraan waxa saacidaya war kale oo ay qortay jariirada Mareykanka ee lidaado New York Times maxay leedahay marka New York Times waxay leedahay sheegashada askariga in la soo badbaadiyay Mareykanka ay sheeganayaan iyo midda Iiraan ay sheeganayso oo ah in askariga la dilay oo Mareykanku ku duqeeyeen meesha waxa jira war kale oo saddexaad leedahay haye muxuu yahay warka saddexaad waxaan xaqiijinay leedahay diyaaradihii gurmadka loogu talagalay oo helicopteriska ahaa oo ciidamadu ay ku dajiyeen buuraha Iiraan oo ay rabeen inay askariga ku soo badbaadiyaan waxa gubay isla ciidankii Mareykanka maxaa dhacay marka weydiinay waxay yiraahdeen way naga ciladoobeen in la ka qaatana waa ka baqnay marka nin diyaaradiisii gubaya oo cararaya ma askari god ku jira ama buur dhexdeeda ku jira si nabadgelyo ku soo baxsanaya waa su'aal kale waxa qoraa waxa way isla New York Times oo ah wargeys oo kamida wargeysada ugu waaweyn Mareykanka saraakiil Mareykan cadeeyeen laba diyaaradood la gubay meesha lagu gubay hay mawjada marka hadalka Iiraaniyiintu waxba marka ka jira waay sheegashadan Trump uu faataleeyo waa soo xureen wax ka jira ma jiraan hadaba marka aan tuso warbixintan cajiibka ah hadaba New York Times ayay Al Jazeera ka soo xigatay warbixintan waxay tiri markii ay ciladoobeen laba diyaaradood oo kuwa askarta qaadayay gudaha Iiraan si ay u soo badbaadiyaan duuliyaha ayaa waxa la sheegayaa in diyaaradahaasi ay gudaha Iiraan iyagoo ku jira la burburiyay hadaba marka waxa la sheegay labada diyaaradood inay ciladoobeen iyagoo Iiraan gudaheeda yaala waxaana laga baqay in la qaato sida daraadeed ayaa la qarxiyay labada diyaaradood casriya oo qatara ma ka soo cararayaan marka meesha waxyaabo badana marka isku sintan moogtay wax badana isku sintan marka waxa loo baahan yahay akhbaartu min bilow ilaa dhamaad ila fahmi karnaa la rabaa laakiin Trump ma saasiri kaliya hadaa sheegto Trump warkiisu ma runa waaba la yaqaan ninkan ma saa kalaam xalaal yaqaan war xalaal oo runa ninkan ma ba sheegay marka warbaahinta laakiin way ka qaataan laakiin marka Iiraaniyiintu waxay leeyihiin ninkan waa dileen nimanka hadda marka maxaa la soo helay New York Times oo leh sheekadaasu halkaas ay ku dhabaatay labadii diyaaradood ee askarta ninka soo badbaadiyay leeyri Mareykanka iyo gacantiisa ku gubay waa qarxiyay marka sheekadaasu marka halkaas mare wixii kale fakarkaaga marka adaa ku darsan kara ma la soo badbaadiyay mise lama soo badbaadin sheegashooyinku marka wararku waa kuwaas waaye qodobkaas marka halkaas kaga gudbaynaa saaka wuxuu haystaa warbaahinta oo dhan warka haysta waaye marka xogtiisu anagu waa haynaa marka idinku waaydi soo gudbinay sheekadu marka halkaas maraysa dhanka kale waxa shir jaraa'id qabtay General Yahya Sari afayeenka kooxda Ansaarullah Xuutiyiinta dalka Yemen waxa uu faahfaahin ka bixiyay saacadihii la soo dhaafay weeraradii ay qaadeen wuxuu dhahay laba weerar qaadnay mid kaligeena qaadnay midna wuxuu qayb ka ahaa duulaan aanu wada qaadnay Iiraan iyo Xisbullah
midka keliyeena ah waxaanu anagu qaabilsaneen airportka Bangorion aan garaacno airportkaas sida wax loogu waday ma aqaan marka dambe sida diyaarad uga kici doon Iran waa ka adeegataa Hezbollah waxbay ku ridaa Houthi oo Yemen jooga wuxuu ku ridaa marka Abu Yemen waxay leeyihiin annagu nimankaasu saacadihii la soo dhaafay si la yaqaan ayaan jugta uga gelinay Abu Yemen waaba yaabayina lagu leeyahay mid oo la wareysanayo Houthi wuxuu yiri waaba yaabana kula awal gantaaleen marka ridno 3 ama 4 ridno hal xabaa noo fakan jiro ku dhici jiray meesh saddexda kale waxba un ka hortagi jiray hadda bahashi waaba iska furanto yiri dalaaq waxa ridato adiga yeesan ku ciilin waaba meesha mar hore la idbiyo kula Iran ka takhalustay wixii gantaalaha meelaha u yaal nimanka dib waa tabcaan kii fakadayna rasaas fiican ma haysto marka 4 saaca jugto lagu hayaa maanta oo dhasuu wax u riday waaba daalay kuleeyiri Israa'iiliyiinta gataaliya naga daalay marka Abu Yemen waxay leeyihiin hadda waaba meeshii ugu macaaneed way leeyihiin waxna la ka qabanaa mal wixii aan ridno waa xaroorayaan kula dalaq waaba iska furataa meesh marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay warbaahinta waxa qoraya saaka waxay leeyihiin burbur iyo khasaare ayaa ka dhashay gudaha Israa'iil kadib markii gantaal saaruuq Iiraani ah uu ku dhacay gudaha Israa'iil dhanka kale kooxda Ansaarullah iyaduna war ay soo saartay waxay ku sheegeen inay duqeeyeen airportka Bangorion iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku dhow magaalada Tel Aviv awjeeda marka halka marka way ka jecla way jilcanaatay meeshii hawadiya ilaashanayna ima jirto nin kasta wuxuu haysto waa meesha ku ridana sanduuq waa ku ridanay marka xusbillah isuga leedahay ana marka galay adiga ku ridanaysid hebel isuga adigana ana markayga tuuranayo isuga waa tuuranaysa marka meeshaas marka xaalkeedu halkaas uu maraa la leeyahay qodobkaas isaguna halkaas ayuu marayaa waayahay qodobka kale ee muhiimka ah saaki barnaamijka aynu kaga hadlayno wuxuu yahay Mareykankii waxay ka cabaadayaan Shiinaha waa taa barnaamijka xalay ku soo qaadanay 5 markab oo gantaalaha iyo alaabta lagu sameeyay iyo inay geeyeen Iran hadda waxay taagan yihiin askarteena iyo maraakiibteena dagaalka meesha istaagaanba Iran waa ogta mar drone lagu weeraro mar gantaal lagu dhufto marka waxay yiraahdeen Iran tekniyadaas ama technology-gaas ma gaarin laakiin waxaanu annagu aaminsanahay Shiinahu inuu nadaba taagay Shiinaha maxaa ka yeelaa waxa laga cunaa Shiinaha dal weyn oo ciidan ka badan nuclear haysta gantaala ka badan maxaa ka cunaa Shiinaha maxaa laga cuni karaa wax laga cunaa ma dhaqaalo ma gabadnid wax walba waa soo taagay waaba ninka raba inuu adduunka ka bedelo rabaaba awoodaada markay wiiqdo ninka inuu qabsado rabo sidaadoo kale u kaabeeyo rabo maxaa laga cunaa marka laba shirkadood oo Shiinuhu leeyahay oo satellite-yada waxa kan iska leh ayaga ayaa taswiiq ku sameeyaa kula waxay sameeyaan suuq geyn sawirradii waxaan ay qaadaan ay soo bandhigtaan markaas laga iibsadaa ayaa ka iibsanaya Shiinaha wuxuu siinayaa Iran ciidanka Shiinaha ku xiray marka shirkaduhu waa shirkado gaar loo leeyahay amal laakiin waxay ku xiran yihiin ciidanka Shiinaha marka sawirrada xogtaas ay keenayaan lacagtooda la siinaa isla markii xogta waxa la siinaa Iran meel alla meeshii talaabo uu qaado markabka diyaaradaha xambaara way ogtay waxay sidoo kale ogtahay askarta gobolka joogta ee guurguuraysa meeshii ciidan la geeyay wixii dhan way ogyihiin haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay jirada la yiraahdo Washington Post ee Mareykanka ka soo baxday waxay leedahay saaki shirkadaha Shiinaha waxay suuq geynayaan macluumaad sirdoon oo ay ku faahfaahinayaan oo ay daboolka kaga qaadayaan dhaqdhaqaaqyada ciidamadeena leeyihiin marka waaba mashruucaba laga dhigtay shirkadaas waaba ka shaqaysanayaan suuq geysanayaan ciidanka Shiinaha ka iibsanay Iran iyo waa laga iibsanaya macluumaadka deeday waa hawshooda way qabsanayaan markaas hadee Iran waxa la hayay ka shaqaysan leh ka adeego waa karaay halkaas ay maanta joogaan caawa markabka halkaas u qaxay waa kan la Iran uga daba tagayso badweynta Hindiya halkaas jugta uga gelinay marka hawshaas halkaas maraysa haddaba qaybtan ugu dambaysa waxaanu ku soo qaadanaynaa warar soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn
haddaba wararka soo kordhay waxaa ka mid ah iiraan waxay sheegtay inay soo riday mid kale oo ka mid ah diyaaradaha droniska halista badan ee maraykanka ee layidhaahdo MQ-9 waxayna sheegeen inay dul hehaabaysay halka loo malaynayo duuliyihii inuu markaa ku jiro ayaanu kusoo ridnay dheheen diyaaradaasaa soo ridnay waxaa dhanka kale siiriga digniinta laga maqlayaa meelo kala duwan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Israa'iil iyadoo telefishinka Iiraan uu sheegay in ay markaa direen gantaalo weerar cusub ah oo saakay ay ku qaadeen Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka dhanka kale diyaarada drone ayaa la sheegay iyaguna in lagu weeraray goobaha korontada iyo biyaha Kuwait iyadoo la sheegay in xaruntii ugu weyneed korontada Kuwait ay khasaaro xoog leh la kulantay haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo kordhay saakay inta wixii kaloo soo kordha haddii alla idmo barnaamijyada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa like gareeya oo share gareeya mar walbana ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan inagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka aanu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo